السلام عليكم guys. I don't know in arrinta maqasheen in kaleeto but arrinta waxay ka dhacday UK London waxayna ku dhacday gabar Soomaaliyeed waxayna dhacday arrintan August 2025 I don't know why for some reason hadda inay social media da haysato sababtoo ani hadda iska hadla anaanteeda maanta ka hor ma arkin mana maqlin sheekadaneeto sheekadan gabar Soomaaliyeed bay ku dhacday ilaahay horta ha u naxariisto gabadhan yartoo dhimatay oo gacanta ka xaq daran dishay ilaahayna qabrigeeda ha u qaboojiyo ilaahayna dambi dhaaf badan ha siiyo dadkii ay ka dhimatani ilaahay samri iimaan Allah ka siiyo gabadhaanay habeenada kamid meel bay joogtay baa la yiri arowan inaa ku dambaawo meesha joogtay dadkan UK ga pop bay ku hayeen pop ka aniga maskaxdeeda hal wax leh ku soo dhacay oo laga wado laakiin ma rab inaan iraahdo halka wax kulay aan waxaan oranayaa meel bulshada joogtay meesha bulshada joogtay bay nin iska barteen ninkii waa la isla sheekaystay waa la isfahmay markii buu yiri let's go amal gaarigiisa bay gashay gaari yar buu ahaa dad badan baa ku jireen boos kama banaaneen soo gabadhii waxay noqotay inay wiilkii meesha iska barteen ninkii meesha iska barteen dhabtiisa ay ku fariisatay gaariga markay soo gasho dhabtiisa ha ku fariisatay maxay sidii gaariga lagu jirbay gabadhan waxay sameysay telefonkeeda la soo baxday waxay bilowday inay recording sameyso recordingkii ay sameynaysay buu ninkan ka helin meesha baa muran ka bilowday qeelo waxay noqotay gaariga inay istaajiyaan gees buu ku dajiyay geeskaaba ku dajiyay maxume kamuuna taginay meesha wuxuu ku bilaabay inuu feero suu feer ugu wada buu feer wuxuu kaga dhuftay baa la yiri dhunta dhulka ku dhacday gaarigiisu gala si asxaabtiisu si dhaqaaqeen gaarigiisa waxa kale ku jiro drugs sababtoo aninkan waxa la yiri waxa lagu yaqaanaa waa la yaqaanaa nin la yaqaano wuxuu ka ganacsadaabo waxyaalahan ay xun oo la isticmaalo anyways gaarigii booliis baa istaajiyay booliiska suu ku istaajiyay speeding gareynayeen I have no idea gaariguna waa la istaajiyay sababtoo gaariga dadka loogu talagala maahan dadka badan baa ku jireen crowded buu ahaa dad badan baa ku jira gaariga maybe saasa laga yaabaa in loo istaajiyay anyways gaari waa la istaajiyay gaariga markii la baaray drugs baa laga helay ayagii waa la kaxeeyay gabadhii waxaa la yiri help bay wacatay by the time help ki maada by the time paramedic imaadeen nafba lagulama soo gaarin oo nafti baa ka dhacday way dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahu naxariisto ilaahayna qabrigeeda u qaboojiyo waalidkii ka dhimatana ilaahay sabri iimaan Allah ka siiyo laakiin waxaa rajeynayaa inay gabadhaas arrinta ku dhacday inay gabdho kaleeto badan ee u noqoto cashar ee ka bartaan inaynan aaminin stranger inaynan aaminin qof aynan aqoonin iska badaa inay aaminin qof ay aqoonin inay xataa aaminin qof ay yaqaanaan because you never know adduunku wuu xumaaday qof aad taqaanid oo dariskaaga ah oo maalin walba aad salaamaysa hay dhehaysid baa wuxuu noqon karaa qof xun trafficking baa jiro dadka waa la iibsadaa gabadhan waaba la dilay ilaahu naxariista nafsadeedii bay meesha ku weysay kuwa waxaa jiro la traffic gareeyo oo la sii gato oo la sii iibsado oo noloshoodoo dhan silacay ku jirto at least qofkaaga hadduu dhintaa ogtaa uba dhinto oo meydkiisa helaysa waaba sabraysaaba imagine gabaraa dhashay mase wiilaa dhashay aadan meydkoodii helin aadan ka warqabinna meelay joogaan adduunka wuxuu yahay trafficking baa jiro waxyaalo badan baa jiro soo qof stranger ha aaminina gabadhan yartoo dhimatay dhimashadeeda wallahi lesson hani noqoto sababtoo maanta haddii gaarigaas geli lahayn kolay inkastoo waqtigeeda dhammaaday oo muslimiinnahay aaminsanna oo saacaddeedii gashay laakiin still she could have been careful way diidi karto dhihi karta no I'm fine but gaarigii bay gashay an nafsadeedii way ku weysay meeshii marka be careful cashar hani ii noqoto gabadhaneeto ilaahayna u naxariista ayadana qaar baan rajeyna salaamu calaykum intaas baan iga daba geenaye